ala soo dhawaado war soo dhawaada barnaamij shir hal dhaho Axmed Madoobe waa isdoortay maxaa diidaya marka farmaajo iyo xasan cali khayre ayagana inay isdoortaan wadadii oo Axmed Madoobe maray haddii ay maraan waxa waaye cid diidaysa ma jirto dadka inay qabtaan ay tumaan oo ma arkino ii sheegay odayaal oo iyaga ma arkino ii sheeg taageersan ay keensadaan xildhibaano iyaga taageersan ay keensadaan kadibna sidaas lagu doorto cid ka hor istaagi karto farmaajo iyo khayre ma jirto sababtoo ah haddii Axmed Madoobe tilaabada uu qaaday oo aan ma arkino isha ku wada faraxno oo aan dhahno Axmed Madoobe wada fiican oo sameeyay haddii aan dhahno de farmaajo khayrna wadadii Axmed Madoobe oo maraan Axmed Madoobe wadadii oo markay maraan kadib maxaan dhaynaa marka farmaajo waa qaldi ma dhaynaa no ma dhahayno barnaamij shir haldo runta isu sheegayna anaga Axmed Madoobe waa daalim oo alle iyo rasuul aanan aqoonin oo diinta ku gambado oo tuug ah hadda idin dhaha aniga waa tuug kala aan sa jirin 2011 ninkii wuxuu ahaay ciidamada Kenya soo hogaamiyay isagoo markaas wata jabhadii Ras Kamboni Kismaayo lagala wareegay meelo umaro oo weesnaay Kenyaatiga markuu soo watay ay Kismaayo keeneen kadib Kenyaatiga waxay bilaabeen in anaga ugu keenaan Kenyaatigi anaga ugu keeneen waxay taagan badan ka haysanaa marka Axmed Madoobe waa tuug waana tuug weyn oo marbashaati gashto oo ma arkino diinta ku qaraabto haddii Axmed Madoobe caburinta oo bulshada ku haayo aad aqbashiin macnaheeda waxay noqonaysaa khayre iyo farmaajo iyagan inay waxay rabaan ay dilaan waxay rabaan ay iska bursadaan annagana aan raali ka naqatiin fiqi iyo asxaabta hadda ordayso dhays Axmed Madoobe wax fiican oo farmaajo iyo khayre saasay sameynayaan farmaajo iyo khayre sidaas wadadaasay sameynayaan wadada ay sameeyaan maxaa la isheeg cid u diidi karto oo alla abuurta ma jirto cid u diidi karto oo alla abuurta ma jirto taas ay idin sheegaan ma waxa ay dhaysay marka farmaajo iyo khayre markii ay ummadda ay indhaha u shitaan oo ay waxay rabaan dilaan hadhow inaan anaga dhahna maxaa la sheeg way qaldan yihiin doorasho xalaal ma rabaan doorasho xaq ma rabaan ma dhayna no ma dhahayno Axmed Madoobe waxa uu sameeyay waa edab darro waa saqajaanimo waa tuugnimo markii saddexaad oo markano waxyaaba sameeyay waaye dadka kale wuxuu ogolo ciidan uu sameystay markano isaga caloosho shaqaystayaala ciddi isii ka fikir duwanaato wuxuu adeegsanaa Kenyaati u adeegsanaa waxa waaye marka Axmed Madoobe ummadii kale iyo beelooyinka 41 qabiil aad degan Jubbaland 41 qabiil aad degan haddii Axmed Madoobe Soomaaliya haddii aad Axmed Madoobe aad taageertiin oo aad ku taageertiin fisqiga iyo dhibaatada oo meesha ka haayo iyo sadbursiga oo meesha ka haayo iyo barakicinta oo meesha ka haayo iyo dilowga oo meesha ku haayo waa inaad maxaa la isheeg idinkana aad samaysiin khayre iyo farmaajana inay arrintaas aqbalaan waa in aqbashiin arrintaas ay noqonaysaa cid oo ka hor istaagi karta malahan waa inay wadada ma arkino isheeg wadadii Axmed Madoobe oo maray haddii maraan cid diidi karta malahan ma diidi kartiin marka runta loo dhintaa rabbina laga baqaa Axmed Madoobe waa mooryaan diimeed waaye Kenyaatigu raali ka ma inuu Axmed Madoobe meesha ka baxo sababtoo waa ninka shalay iyaga soo hogaamiyay waa ninka u sahla Axmed Madoobe inuu Kenyaati Kismaayo oo weligiis Kenyaati ku riyaad jiray
inuu keeno isaga waa marka axmedoobe hadday rag rabtaa annaga waxaan taageersanahay haddii aan nahnay ururka isbedel doonka annaga cabdirashiid xidig aan taageeraynaa sababtoo ah axmedoobe waa dictaatuur waa jaajuus kenyaatiya raallina ka mahninin waxaa waaye waa inaan iska qabanaa axmedoobe waa in laga qabtaa jubbaland axmedoobe haddii la rabo inay jubbaland naqato meel barwaaqo meel horumar laga gaaray imise sanoo joogaa war ilaahay ma ka cabsanaysiin maalin kasta waxyaabaha aan leeyabana waxaa ka mid a dadaa waxay leeyihin maxaa la isheeg axmedoobe saan waaye axmedoobe muxuu ku fiican weligiis wax ma qabane muxuu qabtay kenyaati u kismaayo keena bis wax kaloo qabtay isheega shala argagixiso ahaaye kenyaatiana soo wateen oo markina jubbaland keensadeene bal ma ii sheegi kartin war soomaaliya 41 qabiil axmedoobe uma afduubnaanayso waa layska dhicihaa haddii oo edab darrada oo meesha ka haayo uu iska bixi waayo waa laga jiidaa iyadoo la jiidaya dhegta laga haya markina kismaayo laga bixina ballan waa kenyaatiga oo la qaxa kenyaatigana baarlamaanka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in mooshin laga gudbiyo mooshinkaas markii laga gudbiyo kadibna waxaa waaye waa iska baxaya sharciga kiyaan kenyaati waa huleelabu waa baxa nin dhul nagu haysto dhul mana hayna anaga mana ilaalina nabad ilaalina kama rabno marka sheekada saasay noqonaysaa runta loo dhintaa rabbina oo laga baqaa axmed madoobe waa tuug mooriyaameed waxaa waaye isheega waa jaajuus oo markina isheega kenyaati oo wato waa inaan kasoo wada horjeesanaa dadka dulman ee 41 qabiil ah ee degan xataa ciddiisii aan rabin axmedoobe meesha ciidan caloosho shaqaystayaal iyo kenyaati oo isku haystaa mahine ogaadeenkii oo ka dhashaana rabin oo dhooyaan maxaa la isheeg kuma rabno axmedoobe xisho war xisho waa diiday xisho ummadaha kale wuxuu isheeg wuxuu ogolow haddii doorasho inuu soo bixin wuu ogyahay waa hee mooryaan inuu soo bixin isiga wuu ogyahay ha marka waa idin salaama kulligiin leerta cabooyaa حالكي أبوست واي مركو إذا سلامة كل جين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته